بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. سلام الله عليكم dhammaantiinba. Videogan waxaan ku qaadan doonaa Cyber Security Lab sida loo dhiso. Haddii aad doonaysid inaad practice ku samaysid aqoontii aad baratay ee la xidhiidhaysay cyber security-ga in a secure environment, waxaad u baahan tahay inaad isticmaashid virtual machines ama virtual lab inaad samaysid oo computerkaaga adigoo isticmaalaya. Hadduu computerkaagu yahay desktop ama laptop, waxa ugu yar ee loo baahan yahay si laababkan aad u isticmaashid waxa weeye in processorkaagu noqdo Core i3 iyo waxa ka badan 8GB RAM inaad haysatid iyo wax ka sii badanna ka fiican. Hard diskigaaga 50GB inay meel ka bannaan tahay. Saddexdaa shay haddii aad isla heshid, waxaa ku xigay inaad computerkaaga ku shubtid software loo yaqaano hypervisor. Softwarekaas wuxuu kuu saamaxayaa in virtual machines fara badan aad ku isticmaashid computerkaaga. Adiga hal computer haysta physical computer mid kaliya tuu yahay baad virtually dhowr computer aad isticmaali kartaa. Marka virtual box baan isticmaali doonaa sa hypervisor. Toolkan isticmaalayna ama softwarekan isticmaalayna operating systemkan wax ku tijaabin doono Metasploitable 2 buu noqon doona oo ah Linux based, iyo Kali Linux oo noqon doona attacka qaadaya weerarka qaadaya aan isna softwareska ku jira aan utilize gareyn doono. Marka ugu horeysa aan soo dejino horta VirtualBox URL-kaas tagiyood booqan virtualbox.org, kadib waxaad ku dhufataa buttonkan bluega. Markaad soo dejisid VirtualBox, waxaad kala dooranaysaa buttonkan bluega. markaad ku dhufatid ma waxaad isticmaalaysaa Windows or Mac or Linux. kii aad isticmaalaysid markaad dooratid aad computerkaaga ku shubtid, sidan oo kale ayuu kugu soo baxaya. This is VirtualBox hypervisor kan isticmaal doonaa oo type 2 ah. u fudud yahay, open source weeye, cross platform. Windowsna waa lagu isticmaal karaa, Mac iyo Linux ba sidaan u soo arkaynay. waxaynu ugu xiga in aad soo dejisid Kali Linux. Kali.org website-ka booqo, kadib waxaad ku dhufataa badhankan download ee orange-ka ah oo soo daadaga waxaad doorataa installer image. kan waa mid diyaar ah oo username iyo password lagu siinayo. waxaan doonaynaa inaan toos anaga ugu shubno. kaasaan ku dhufanaynaa, hoos buu noo soo dejinayaa. waxaad ka sii dooran 64-bit computerada intooda badan 64-bit weeye. kadib ma torrent baad isticmaali mise direct download kaad isticmaashid baka kale waa la mid 3.5GB oo space weeye ama file-ka soo download garanaysa ISO image. kaasina markaad isagana noo soo dejisid something like this one u noqon doonaa ISO image ka waan tusi doonaa. Finally Metasploitable 2 waxaad ku dhufataa linkiga ugu horeeya sourceforge.net. isna waa Ubuntu base 0 ilaa 800 MB. downloadka markaa ku dhufo file-asha soo dejinaysa halkan aad ku arki kartaa this Metasploitable 2. downloadka ku dhufo 800 MB. inta markaad soo download garaysid ay diyaar halkan kugu yihiin, wax noqon doonaa this one ISO image kan ayaad u baahan tahay Metasploitable 2. labadaasi aan ku barreysino se Kali Linux. sida markaad VirtualBox uga soo furtid new dheh, halka magacaan ku qorno Kali Linux. halkuu location-ku ku kaydinayo operating system waa fine. operating system-kii baan usoo sheegaynaa, waxaan leenahay ISO image-ka soo dooro, other baan dooranaynaa, dabeetana location-kii uu kuu dhigay markaad soo download garaysay click ku soo dhufo. automatically wuxuu yidhi waa detected the OS type Ubuntu budi. inkastoo Ubuntu aan wahayno Debian uu yahay, waan bedeli doonaa, next baan leenahay. halkan waxaa noo soo baxay RAM-ka intaad siinaysid 16GB oo RAM halkan aan ku arkaya. marka computer qof wuxuu isticmaalaya way ku kala duwan yihiin. haddii halkan 8 ku haysatid, labadaas inaad siisid waa ku filan tahay, 3 inaad ka dhigtid waa okay. marba markaad RAM-ka kordhisid way fiicanta. adigu computerkaaga main OS-ka waxna uga tegaya, casaanka imka ma gaari karo oo uu diidaya, halkaas error buu soo dhigi doonaa hadhow. marka intaas oo dhan ma siinayo, waxaan siin doonaa let's say 4GB 4096 of RAM.
processorka 8 ban haya CPU kala badh baan siinayna 4 out of the 8 next baan leenahay hard diskigaasi minimum requirement haddii aan siino 50 GB way ku filan tahay 50 GB haddii software aad wax ku shubaysidna way ku filnaanaysaa 30 oo caadi 50kaasna waa halka ugu wanaagsan next baan leenahay summary baa lagu siinaya is the summarygaas waa maxay waxyaalahii aad u baahneyd ma yihiin mise waxbaad ka bedbedelaysaa haddii aad u baahantahay wax ka bedeshidna you can do that also finish baan leenahay halkan markuu inoo keeno ayaan ku dhufanaynaa settingka right click dabeetana settings waxyaalahan kasoo bedbedelaynaa waxaa ka mid ah inaan soo hubino network interfacekaasi NAT inuu yahay oo connected cablekaasu yahay NATkaasi internet connectivity ku siinaya ood updatekaas waxaa u heshid waxaan tegi doonaa storageka halkan waxaan ku dhufanaynaa DVD CD gaan soo dooranay live aan idhaahdo si uu bootable u noqdo displaygana waxaan u kordhin doonaa video memoryga wax dhibaato kusoo kordhimayso inta kale waan deynaynaa versionkan aan bedelno is not Ubuntu waa Debian waxaan u optional qasab maaha Debian 64 bit calaamadeena way isbedeshay start baan odhanaya startkaas markaan ku dhufano qaybtan waan iska soo minimize garanaya kana minimize maximize this one halka wixii ka dambeeya waxaan ku wadanaa arrowga graphical install kaasaan dooranayna graphical install kaas markaan dooranno tan iska soo xidho we don't need this one meelaha ugu badanna defaultkeedan ku dayn doonaa wixii wax ka bedelayna waan ka bedeli doonaa languagekan dooranna waa English locationka hadhow aan bedeli doonaa waxaan ku daynaynaa United States American English loading buu sameynaya wixii CD DVD-ga ku jiray buu kasoo qaadaya halkan ku shubaya waa kuwan faylashu isticmaalayo halka let's wait additional component-ka IP version 4 IP version 6 configuration kiisu fiirinaya mar haddeen NAT-kii soo dooranay automatically wuu ka dhigaya IP addresska inuu helo from DHCP oo wax bixinaya virtual box-ka hostname computerka magaciisa haasaan ku dayno Kali domain name waxba uguma baahnin next baan leenahay continue full name cidda isticmaalaysa full namekiisa la say Axmed Diiriya isticmaalaya continue username-keygana wuxuu ka dhigay Axmed that's fine passwordkana let's use this password 1234 weeye mar hadduu laab yahay aan wax ku tijaabinayno 1234 in isticmaalno wax dhibaato kuma jirto laakiin computer hadduu caadi yahay la isticmaalayo oo production environment ku yaalo passwordka 1234 inaanad isticmaalin baa wanaagsan hadda imka laabkan intaan ku practice gareynayno doesn't matter clock waa iska stream time-kaas aan iskadeyn hadda wax badan baan ka bedeli doono location-keena si us bedeli doono marka halkan waxaan ka dooran doonaa continue doesn't matter hard diskigii baa ku xigay kala qaybintiisa hard diskigaasna default-kiisaasaan ku daynaynaa hal partition baan leenahay isticmaal oo wax walba use the entire disk 50 GB aan siinay baa wada isticmaal baan leenahay waxba kala qaybin 50 GB waa kaas virtual box-ka ahaa hal partitionna faylasheena dhan ku ururi is recommended for the new users waxaana nahay new user marka partition-kaasaan ku daynaynaa continue baan leenahay ma hubtaa baa lagu leeyahay inuu saasa loo kala qaybin doonaa this is the primary and this is the logical disk oo swap buu sameeyay 1 GB haddii uu baahdo oo uu isticmaali doono for hibernating oo kale changeskaasi in hard diskiga wax laga bedelo by default no bay ku dooran tahay yes but ku dhufan kadib continue baad odhan kolka wuxuu bilaabayaa in installation-kii
pause baan saari doonaa videoga, waxaan kusoo noqon doonaa markuu intaa inoo dhammaystiro. wuxuu inoo soo dhigay optionska noocan ah desktop environment noocmaad isticmaalaysa. saddexdan option baa noo yaala XFCE, GNOME iyo KDE Plasma. intana waa toolskii iyo top 10 toolskii iyo intii default kala socotay. marka saddexdan kala dooro ku leeyahay this is the default Kali default desktop environment waa XFCE. resource yar buu u baahan yahay, labadana xoogaa resource bay u baahan yihiin sida CPU iyo RAM-ka. marka XFCE gaasaan ku dayn doonaa continue baan leenahay. halkan uu soo gaarsiiyey wuxuu nagu weydiinayaa grab bootloader-ka ma waxa lagu shubay Google primary drive-ka. yes baan leenahay. kadib primary drive-ku waa kan, waa hard diskigii aan soo sameynay ee ka taga GPU-ha. halkaasuu noo yaala devices SD1 ama SDA. continue. kadib wuu dhammaystiri doonaa reboot buu noo dhan. halkaasunbaa inoo harsan reboot baan u diri doonaa. hadda wuxuu soo gaadhay installation complete, please choose continue to reboot. continue baan leenahay si uu u bilaabo restartkii computerka. waa la daminaya, dib baa loo soo daaraya. aan aragno markuu soo daarmo username iyo password kadib ku gali doonaa. dabeetana displayga ayaan wax ka bedeli doonaa, then halkaasaan ku joojin doonaa. rebootka bilaabay. enter ku dhufo. give it a moment. sidaad ka muuqato shaashadda way yar tahay. hadhow baan displayga wax ka bedeli doonaa for the laakiin meantime sidaas ayay u yaraanaysa. waayahay wuxuu inoo soo dhigay promptkii username-ka iyo password-ka. username-kan Axmed buu ahaa, password-na 1 2 3 4. first bootka ugu horeeya sidaas ayuu culus yahay, wixii ka dambeeya uu sii fududaanaya. again waxaana ku xiran tahay culayska iyo fudaydka. fudayd inuu kuu noqdo waxaad u baahan tahay CPU fiican iyo RAM fiican inaad siisid. okay, sidaa markaan u soo baxday shaashadda waxaan ku weyneyn karnaa in display tagno. display ku qor ku dhufo. kolkaa waxaad doorataa monitorkaaga intuu gaarsiisan yahay. halkan ID 860 waan ka bedelaynaa. monitorkayga waa 1920 by 1080. apply baan oranayaa. then keep this configuration close. dan halkan view imaado full screen mode. isna shaashadda wuxuu ka dhigi doonaa ina full screen mode. sidaas ayuu ku dhammaystiran yahay installationkii Kali Linux. waxaa nagu xigi doonaa diyaarinta Metasploitable 2.